كل واحد لي أود إذا ما كلا بنا إسرائيل because نين كان هادو ما أنت قبيل استعماله حمدوه والله يا دارو ذي على جيا با دولة دول بس يا ولد ما با إيش خوب كذا يا عسكرت هذا والله حلقة دو حمدوه جيدو والو هيلك را حلقة هنا أود من ترلا لا ديكستين نقول نسا دو حمدوه شاكا نسام كسي وضع لكن هو كبباق ججا وحلو مهلا مضافي شعبك يلا لين الله يعني إله اللي قابسده شعبك الله ترى الله xilli uu sii daba dheeraanayo khilaafka xooggan ee u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland isla markaana dawladdu ay ciidamo fara badan geynayso deegaanada Jubbaland ayaa shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaan weydiinay bal aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan awoodda military ee dawladdu ay doonayso in Jubbaland ay ku muquuniso iyo ciidamadaas faraha badan iyo sida ay u arkaan xalka ku jira in markaasi dawladdu ay ku soo afjari karto waxa ay ka dhibteen aragtiyo kala duwan waxaana qaarkood ay ugu baaqeen dawladdu in ay soo celiso ciidamada ay halkaasi geysay waxa ay sidoo kale ugu baaqeen in aysan ka shaqeynin dawladdu in dhiigga wiil Soomaaliyeed uu san daadan هذا وحواي military ka xog badan ma jiro axmedoobe ciidamo wuxuu haystaa la yiraahdo farda axmaar iyo ciidamo la yiraahdo Soomaali jeex marka axmedoobe ciidamadii wuxuu haystaa lagu baabi'iyay ururka alif axmaarada u shaqeyn jiray magacooda dadku u yaqaanaan new police aniguna aan u aqaano farda axmaaro awaay axmaarada dhaansato dadkoodii iyo dalkoodii iyo jamhadii u halgami jirtay wadankaas oo Soomaali galbeed waxay gacanta u gasheen axmaarada ilaahay wuxuu idmay in jigjiga bartankeeda ay ku soo bandhigaan saliib weyn oo saliibka ugu weyn Afrika cadadiisa mid la eg ay ku soo bandhigeen marka nin hooyis aabiis axmaar u gali gacanta Soomaali u daahimaayo waxa soo adeegsanayana waxa waaye abi axmed waaye axmedoobe maahan marka waxaan leeyahay hadde ilaahay inuu noo u hiiliyo dawladda oo isha axmed madoobe oo dhirbaaxa xaq ilaahay ku dhacda maahane kulli waxaan leeyahay awood ciidan ma kala badnaa Israa'iil because نين كان هادو ما أنت قبيل استعماله حمدوه والله يا دارو ذي على جيا با دولة دول بس يا ولد ما با إيش خوب كذا يا عسكرت هذا مركا وحال لي كرا حدي وجه Soomaali نمو أي بهاش طافتو نول بقبيل بنقنا يا حمدوه بقبيل كسر كل جريدونا يا كينيو وعلى بسد دول كو عيار هذا أردد جيسنا ما كمان هني قد كيسا أولوالله مرك أحمد مذوبة هدو بطينا هاي وراق صوص صاراي معناها جيسنا ما كمان هن كين يتوبي روانو قالك سالك الله قالوا ما قبيلنا وكودا قال تمو إنه إيش ما يشي صار كلها بتنو على جيها ده وجه جيس عادي على صباحه مرك حبس ما دار إذن واحد دولة waxaan leeyahay in dhiig Soomaaliyeed daato kulay waxa xamudo watana waa wiil Soomaaliyeed waxa adinku geynaysiin waa wiil Soomaaliyeed dhalinyarta Soomaaliyeed oo nin walba waxa waaye caruurtiisii ay dayacan yihiin hooyadiisa aabiis ay dayacan yihiin inaan la isku baabi'inin hooyaa soo dhashay 9 bilood siday meel kasto wiil Soomaaliyeed ku dhimanayo anigu waa ka soo horjeedaa marka waxaan leeyahay حالك أوجد ودول سمين كرت مانتو حياتي عارين كان وجه سياسي إنه كوجشوا إذا كان يسوع لسه because ما أنت هدي أيقر الله أنا فايده ومجرته هدي وحلا أنا فايده ومجرته وهذا قعنت هذا ميك تجرتي قعنت هذا بيد هذا أنا جرتي وح فايده أو قعمل عن هين مسوا كرديان مركو حالي هاي إذا ما فتح حمارنا يلا إنكار قلب سنين ويلشان Soomaaliyeed يلا لينين يلا اسكول لينين حالي هل سو كلا قادان ليان والله حلقة دو حمدوه جيدو والو هيلك را حلقة هنا أود من ترلا لا ديكستين نقول نسا دو حمدوه شاكا نسام كسي وضع وأنا غلط وحمدوه إن لسوق بتاع إن شاء الله دولة فدرالك أو فدنا إن شاء الله سوارك مركا ciidamada dawladda ee geynayso raas kamboon oo ku faraxsan hay ciidamada badan ee maalo soo dhibeen waa ka war hayna kuwa kale afar dowmad ee maanta soo dhibeen ayadan waa ka war hayna taas ku soo dhiibaan axmedoobe kaliisa meesha lagu tagay insha Allah waan la soo ka teeneen haduu ilaahay wadankan doorasho cad qof ayaa ka dhacayso
suurtagal waa haddii la isku day waa noqonaysaa insha allah waan la dadaalaa insha allah axmedoobe aniga sidaa leeyahay inkastoo asiba xagga awood badan ku leeyahay waa in lasoo qabtaa rajayna hadduu ilaahay yidhahdo inkastoo haddii arrintii xalku dhammaa wayse inuu dhiig daataa macnaha waa wallaahi bilaahi labadaba waa dulmiyiin wallaahi labadaba waa dulmiyiin baadilay ku socdaan dadka masaakiinta shacabkiyaa la laynin aan leeyahay ha laga waanto waan leeyahay madaxweynayaasha meeshay joogaan hadday ka waantan weeyaan shacabkeenna waa iska qabanaynaa war adi fiiri shacabkaaba ku filan baydhabo keliya ay dhihi kartaa iga baxa kismaayo iga baxa dhihi karto hadduu madaxweynaha shacabka la shaqeeyo annagana waa la shaqaynaynaa laakiin hooga babac gajaja waxaa laguma helaayo madaafi shacabkiyaa la laynin aan leeyahay ani ilaahay laga cabsade shacabkaa loo turaan leeyahay alaa kulli haal laba libaax isma dhaafayso laba hub haddii meel la kala geeyo waa laisku ridaa waa laisku qasmaya laakiin xalka waan rabaa ani nabadaan rabaa nabadaan naas la luuga ay tiri raaweyn nabadda see lagu helaa waa lagu helaa ijiha hoostooda laga raadinaa ijiha hoostooda horta ciidamada la geenayo raaskabooni deegaanada jubbaland ciidamo soomaaliyeed waaye marka meel kastoo soomaaliya ka midana inay amnigeeda sugaan baa waajib ka saaran yahay saas darteed marka ciidamada la geeya hadda jubbaland dhib kuma aanaan dhihi karaa haddii ay si gooniya loo falaqanayno warka la qalqalloocinayn caadi waayo ciidamo soomaaliyeed waayo meel dhalaale meeshay doonaan ay ka howlgeli karaan waayahay xalka hadda khilaafa u dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka xalkeeda ciidamada ku imaan karta wallaahi waxaa dhihi lahay madaxda inay wadahadal isugu fadhiistaan ciidamadana aan la isku dirin ciidamo soomaaliyeed oo walaale waaye ayagana kulleyto waajibka inay isla wada gutaan intaasaa maxaa marka u baaqi lahayd madaxda dowladda iyo jubbaland waxaa ugu baaqi lahaa inay miiska wadahadalka ay wada tagaan ayaga iyo waxay isku haystaan ay ka wada hadlaan hadda ciidamada isma haystaan ciidamada inay waajibkooda qaranka ay gutaan faysal cabdi faarax kalasan t v magaalada muqdisho u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg app store iyo play store abka dahabalaas internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah